assalaamu calaykum saaxiibayaal dhammaantiinba meel kastoo aad inagala socotaan halkani waa Garaa TV. qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah Fahad Yaasiin oo dacwada ka dhana guddiga doorashooyinka heer federaal iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble u gudbiyay maxkamadda sare ee waddanka iyo xaaladda oo sii adkaatay. iska horimaad qabiil ku salaysan oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan nabad sugidda Soomaaliya iyo qasaare ka dhashay. wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka digay qatara amni oo uu abaabulayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saacadaha soo aadan. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo lagu dhaliilay mahadcelintii uu u jeediyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble xilli ay soo waceen isla markaana ay la wadaageen dareenkooda la xiriiray musiibadii suuqa waaheen. iyo dalalka ku midaysan gaashaanbuurta NATO markii ugu horeysay u muuqanayay inay ku beerayaan dagaalka ka holcaya waddanka Ukraine. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne sidaasi naga aqbalee diyaar garooba saaxiibayaal. isku soo laabashaha boor mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV. xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. waxaa loogu bishaaraynayaa ummadda islaamka ah meel kastoo ay dunida ka joogaan inuu u diyaariyey macadka Daarul Xufaad duruus online ah oo maadooyinka ka baxaya ay ka mid yihiin xifdinta quraanka kariimka, barashada qiraa'ada quraanka, barashada akhrinta iyo qorista luqadda Carabiga. wixii faahfaahinta dheer waxaad kala xiriiri kartaa lambarada shaashada saaran. taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA haddana ah la taliyaha dhanka amniga ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa dacwada ka dhana guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID waxa uu u gudbiyay maxkamadda sare ee waddanka taasi oo la xiriidha kursiga golaha shacabka ee uu dhowaan ka soo qaatay magaalada Beledweyne isla markaana la laalay natiijadiisa. sida ku cad warqadda dacwadda ee Fahad Yaasiin ayaa guddiga FID ku eedeeyay in ay si aan sharciga waafaqsanayn ay u celiyeen kursigiisii Hob 086 oo dhowaan loogu soo doortay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya ayaa qabsaday qareen waxauna isku dayayaa in maxkamadda sare ee dalka ay go'aan ka gaadho kursiga loo doortay ee Hob 086 kadib markii isku dayo kale oo uu doonayay inuu ku helo shahaadada cadaynaysa xildhibaannimadiisa uu ku guuldaraystay. dacwadda Fahad Yaasiin ayaa ka dhigan mid gabi ahaanba baalmarsan heshiiska doorashooyinka dalka kaasi oo dhigaya in dacwadda iyo cabashooyinka dhanka doorashooyinka ah loo gudbinayo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka isla markaana aysan wax luga ku lahayn maxkamadda sare ee waddanka. guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa horay u fasaxay kursiga Fahad hase yeeshee ma jirin kiis dacwada oo dhanka Fahad Yaasiin uga yimid taasi oo saxaanshaha iyo sharciyadda go'aankooda mugdi gelisay guddigaasi. kursiga Hob 086 waxaa ku dhagan guddiga doorashooyinka heer federaal iyadoo lagu haysto in doorashadiisa la qabtay iyadoo uu hakiyay guddigu lana baalmaray hanaankii doorashada ee ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaran isla markaana lagu soo dooranayay kuraasta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. si kastaba waxaa la rumaysan yahay in kiiska kursigani uu yahay mid siyaasadaysan isla markaana xayiraada la saaray uu ka dambeeyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo dagaal kula jira madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin. horay ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida looga gudbiyay dacwada ka dhana Fahad Yaasiin
oo lagu eedeeyay inuu ka qayb yahay dil loo geystay sargaalad ka tirsanayd hay-addaasi Ikraan Tahliil Faarax. mana la oga sida ay ku socon karto dacwadani maadaama ay dacwad kale ka taalo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, isla markaana dastuurka waddanku dhigayo in aan la qaadi karin dacwadda kale ilaa taasi xal laga gaarayo. waxaana hadda Fahad Yaasiin uu ku rajo weyn yahay in go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda sare ee dalka oo hoggaankeedu u janjeero dhinaca madaxweyne Farmaajo in markaasi ay baabi'in doonto dooda guddiga doorashooyinka heer federaal ku hor istaagay kursiga Fahad Yaasiin uu ka soo qaatay magaalada Beledweyne. maxkamadda sare ee dalka ayaa tan dhaarinaysa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya, inkastoo ay xusid mudan tahay in Fahad Yaasiin uusan haysan shahaadada cadaynaysa xildhibaannimadiisa ee baarlamaanka golaha shacabka. arrintani ayaa sii cakiraysa khilaafka siyaasadeed ee ka taagan waddanka, khaasatan kan hareeyay doorashooyinka iyo dhammaystirkooda. waxaana go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda sare ee dalka uu sii fogeynayaa xaalka siyaasadeed ee dalka iyo isqabqabsiga xilligani ka taagan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. 14 bishani ayaa loo madalsan yahay in la dhaariyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya, iyadoo ay xusid mudan tahay in Koonfur Galbeed xubno faraku-tirisi ay ka qaateen shahaadada. intii kalena madaxweyne lafta gareen uu ugu yeeray magaalada Baydhabo si aysan u qaadan shahaadada ka gadaal markii loo diiday 3 xubnood oo ka mid ah kuwa lagu soo doortay Koonfur Galbeed shahaadada xildhibaannimo si la mid ah Fahad Yaasiin. waxaana hadda magaalada Baydhabo ku sugan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, halkaasi ay u joogaan waan la xidhiidha si loo dhameeyo khilaafka isla markaana xildhibaanada Koonfur Galbeed ay u qaataan shahaadada xildhibaannimo. waa hagaag saaxiibayaal, Garaad TV ayaad inagala socotaan. wararka naga soo gaaraya magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in gudaha magaalada uu isku hornimaada ku dhex maray askar ka wada tirsan ciidanka nabad sugidda Soomaaliya ee NISA. isku horimaadka ciidamada NISA ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah ciidamada NISA ay isdhaafsadeen hadallo xanaf leh oo qabiil ku salaysan, taasi oo markii dambe sababtay in ciidamadu ay noqdaan laba dhinac isla markaana dagaal uu dhex maro. waxaa dagaalkani ka dhex qarxay ciidanka NISA ku geeriyooday inta la xaqiijiyay ilaa 3 ruux oo ay ku jiraan 2 askari oo ka tirsanayd ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, iyo sidoo kale qof shacab ah oo rasaastu ay haleeshay. waxaa sidoo kale la soo warinayaa inuu jiro dhaawac kale oo ka dhashay isku horimaadka ciidanka NISA, waan ilaa hadda si rasmiya loo ogeyn tirakoobkooda. sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil ku sugan magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, saraakiisha 14 Oktoobar ee ku sugan magaalada Marka iyo taliska nabad sugidda magaaladaasi ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay inay ciidanka kala dhex galaan isla markaana ay xaaladda dejiyaan. ma jiro ilaa hadda wax hadal oo ka soo baxay maamulka iyo laamaha ammaanka ee degmada oo ku aadan dhacdadani ay ku geeriyoodeen askarta ka tirsan ciidanka NISA iyo dadka shacabka ah. ama ogeyn isku horimaadkani dhex maray ciidanka ka wada tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya in uu yahay mid saameyn ku leh xaaladda siyaasadeed ee ka jirta waddanka, xilli uu sii siyaadayo kala shakiga ciidamada dhexdiisa iyo qabaylaadka loo kala qaybinayo. qaybaha kala duwan ee ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa xilligani la tilmaamay in ay iskala furfurayaan lana kala safanayaan dhinacyada isku haya siyaasadda ee xilligani xaalkoodu uu kacsan yahay. waxaana dhinacyadaasi kala hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo xurguf siyaasadeed ay ka dhaxaysay bilihii u dambeeyay.
waa hagaag saaxiibayaal wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaa daawanaysaan. wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo in dalka meel xun uu ku wado, waxaana sheegay wasiirku in Farmaajo damacsan yahay sidii uu xukunka u sii joogi lahaa muddo dheer, isaga oo ka soo horjeeda in wadanku ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah sida uu hadalka u dhigay. wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in Farmaajo weli rabo in sifa sharci darra uu dalka ku sii hogaamiyo, waxaana cadeeyay haddii ay suurtoobi weyso in dalka uu xoog ku sii maamulo inuu ka fakarayo sidii talada dalka uu ugu wareejin lahaa ururka Al-Shabaab. waxa uu tilmaamay in madaxweyne Farmaajo uu doonayo in xukunka uu sii joogo haddii taasi ay dhici weydana aan dal iyo dad midna ka harin, oo uu qaso isla markaana uu burburiyo dowladnimada Soomaaliya sida uu sheegay wasiirka wasaaradda amniga. wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka shaqeynayo in shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM ay isku dhacaan, balse iyagu ay ka shaqeynayaan sidii shacabka ay ugu badbaadin lahaayeen daminka ay u dhigtay kooxda Farmaajo. Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka agdhow ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble sidoo kalena mucaaridsan kooxda Nabad iyo Nolol ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay jiraan qataro amni oo maalmaha iyo saacadaha soo socda kusoo fool caasimadda, wuxuuna sheegay in qatarahaasi uu maleegayo madaxweyne Farmaajo oo lumiyay kalsoonidii uu doorashada ku gali lahaa, sidoo kalena aan saameyn karin in uu tanaasulo, sidaa darteedna maleegayo qatara dalka dhibaato weyn gelin kara. wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo ay ka dhamaatay kalsoonidii uu ku gali lahaa doorashooyin hufan oo ka dhaca wadanka, taa beddelkeedana uu doonayo in xukunka uu ku wareejiyo ururka Al-Shabaab haddii uusan xukunkaasi joogi karin. wasiirka amniga Soomaaliya ayaa sheegay in kooxda Farmaajo aysan waxba ka duwaneyn kuwa suunka soo xirta ee ismiidaaminaya, wuxuuna ugu baaqay shacbiga Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan kooxdaasi dalka qatarta gelinaysa. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in wakiilkii midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Comadera dalkani ay uga dhamaatay marnamana uusan ka shaqayn doonin, waxauna xusay in Farmaajo iyo kooxdiisa wax kasta ay sameynayaan si ay Comadera dib ugu soo celiyaan. waxa uu sheegay in shacbiga Soomaaliyeed iyo howlgalka midowga Afrika aysan isku dhici doonin, taasina ay tahay mid uu xilligani ka shaqaynayo madaxweyne Farmaajo, laakiin innaga ayaa shacabka ka badbaadin doona in ay kacdoon la galaan howlgalka AMISOM, ayuu sheegay wasiirka amniga. waxa uuna tilmaamay in qaladaadka uu ku dhacay Francisco Comadera uu yahay mid aan ka soo laabasho lahayn, sidaa darteedna ay ugu baaqayaan howlgalka midowga Afrika in ay danjira cusub u soo magacaabaan wadanka. waa tahay gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed ee Somaliland siyaasi Cabdullaahi Darawal ayaa ku dhaliilay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mahadcelintii ay u jeedisay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble xilli ay qadka telefoonka kula hadleen madaxweyne Biixi, isla markaana ay ka dareen celiyeen musiibadii ku habsatay suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa. jaamac Darawal ayaa tilmaamay in arrinkaasi ay ceeb iyo fadeexad ku ahayd qarannimada Somaliland in ay u sacabtumaan Farmaajo, isla markaana ay dowladda Soomaaliya looga mahad celiyo madaxtooyada Somaliland ee Hargeysa. siyaasiga ayaa hadalkiisa ku yiri waa baahan tahay baqtiga looma cuno, waxay ahayd inaan la qaadan lacagta ka timid magaalada Muqdisho, taasi oo wax badan inaga lumisay, sidoo kalena daciifnimo inoo ahayd inaynu madaxtooyadayada uga mahad celinno madaxda Muqdisho, sida uu hadalka u dhigay. jaamac Darawal ayaa ku tilmaamay mahadcelinta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee Farmaajo iyo Rooble inay ahayd qalad siyaasadeed oo ku dhacay
isla markaana Somaliland ay waxyaabo badan ku waayi doonto. waxa uu soo hadal qaaday in dhowaan dowladda Mareykanku ay casuumaad u fidisay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, sidoo kalena hadda golayaasheedu ay ku howlan yihiin madax banaanida Somaliland sidii ay ugu dhawaaqi lahaayeen, taasina ay god dheer ay ku sii dhacayso mar haddii madaxtooyada Somaliland looga mahad celinayo dowladda Soomaaliya. dhinaca kale waxa uu qalad ku tilmaamay in la qaato deeqda caalamku ugu talagalay Somaliland ee muddada dheer ku xayirnayd magaalada Muqdisho, isagoo tilmaamay in haddii ay wanaag u galayaan madaxda Soomaaliya, Somaliland ay mar horeba usoo fasixi lahaayeen lacagtaasi. waxa uu yidhi uma aanan baahaneen, waynu iska bilahayn suuqa iyaga, laakiin ma ahayn inaynu qaadano daciifnimada iyo dhaqaalaha laga soo diray magaalada Muqdisho. dhinaca kale siyaasiga ayaa ku baaqay inaan la siyaasadayn gudaha Somaliland arrinta suuqa Wahen xilli ay xisbiyada siyaasadda ee Somaliland isku tuurtuurayaan hadallo la xiriira musiibadii dabka ee ku dhifatay suuqa Wahen ee magaalada Hargeysa, halkaasi oo gabi ahaantiisaba uu baaba'ay suuqaasi. Somaliland waxaa meelo kala duwan ka soo gaaray caawimaad loogu talagalay in lagu caawiyo dadkii hantidoodu ay ku burburtay suuqa Wahen ee magaalada Hargeysa, waxaana Muqdisho oo qura dowladda Soomaaliya ay Somaliland u shubtay lacag gaaraysa 12 milyan oo 11 milyan oo ka mid ah Somaliland ay lahayd kana taalay magaalada Muqdisho. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana markii lacagtaasi loo fasaxay Somaliland waxa uu mahad celin ballaaran u jeediyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo amarkiisa lagu fasaxay lacagta, iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dareenka la qaybsaday shacbiga Somaliland, sheegayna inuu ka xun yahay wixii soo gaaray. hagaag haddana aynu eegno colaadda Ukraine. wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanbuurta NATO ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku shirsanaa magaalada Brussels ee xarunta Belgium-ka, iyagoo ka wada hadlay inta uu gaarsiisan yahay hubka military ee la siiyay Ukraine. caqabadaha haystay NATO intii uu socday dagaalka ayaa ah dalka Ukraine oo ay siin lahaayeen taageero military oo ku filan iyadoo aan faraha lala gelin colaadaas, isla markaana ay isku arkaan in ay dagaalka kula jiraan Ruushka. dalalka gaashaanbuurta NATO ayaa hadda la tilmaamay inay ku sii siqayaan in ay toos ugu biiraan dagaalka ka holcaya dalka Ukraine muddada dheer kadib duulaanka ay ku qaaday xukuumadda Moscow. haddii ay jirto fursad kasta oo looga hortagayo weerarada la filayo in Ruushku uu ku qaado gobolka Donetsk ee bariga dalka Ukraine, marka waxaa si degdeg ah loogu baahan yahay in mar kale la siiyo hubka reer galbeedka ee lidka gantaalada iyo kuwa kale ee ugu casrisan ee xilligani ay haystaan dalalka ku midaysan gaashaanbuurta NATO. Ukraine waxay doonaysaa in ay hesho taangiyo, diyaarado dagaal, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada lidka ah ee ilaalinayo hawada sare si ay uga hortagaan duqeymaha Ruushka iyo gantaalaha ridada dheer, kuwaasi oo si joogto ah u xaalufinaya kaydka istiraatiijiga ah ee Ukraine ee shidaalka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah. in ka badan 30 dal ayaa taageero military siiyay Ukraine tan iyo markii dagaalku bilowday, oo ay ka mid yihiin 800 milyan oo lacagta ganiga ah ee midowga Yurub uu siiyay iyo 1.7 bilyan oo uu Mareykanku ugu deeqay Ukraine. madaxweynaha Ruushka Putin ayaa waxa uu dunida u diray fariin ah in uu haysto hubka nuclear-ka, isla markaana uu heegan geliyay ciidamadiisa u qaabilsan hubka nuclear-ka. Ruushka waxa uu haystaa hubka nuclear-ka oo aad u weyn, marka ha u malaynina in aadna riixi kartaan, ayuu yiri Putin. mabaadiida military ee Ruushka ayaa u ogolaanaysa in ay goobaha dagaalka ay ku adeegsan karaan taatikada madaxyada nuclear-ka. waxay og yihiin in reer galbeedku necab yahay isticmaalka nuclear-ka, kaasi oo aan la adeegsan muddo 77 sannadood.
wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waa naga inta nabadgelyo.